lixdankii jiriyada deegaanka xilwe ee Masar waxaa ku dhashay Cumar bin Cabdicasiis markaasoo aabihii uu badhasaab ka ahaa Masar. hooyadii waxaa la odhan jiray Leyla bintu Caasim bin Cumar bin Khadaaba. waxaa awowow u ahaa khaliifkii weynaa ee muslimiinta Cumar bin Khadaaba, allaha u naxariistee. xaaskiisu waxay ahayd Faadumo bin Cabdimaalik. Cumar waxa uu ku caan ahaa ka hor intaanu xilkan qaban xarago iyo qurux iyo damaashaada. sanadku markuu ahaa 99 jiriyada ayaa xilka amiirka muuminiinta loo magacaabay. inkastoo aanu rabin xilkan loo magacaabay ayaa Cumar bin Cabdicasiis shaqadiisii ugu horeysay waxa uu ku bilaabay inuu ka joojiyo hantidii ay qaadan jireen reer Binu Umayya, waxaana uu bilaabay inuu ka soo celiyo isaga oo ka bilaabay qoyskiisa. waxaana uu gaday hantidiisa oo uu ku daray baytulmaalka. sidoo kalena waxa uu amray in reer Binu Umayya ay maalka ay haystaan ku soo celiyaan baytulmaalka. Cumar waxa uu ahaa mid ku saamalayla shaqada heeruu miisaanka jidhkiisu gaadhay inuu daciifo. sidoo kale Cumar waxa uu ka lahaa dhar hal shay. Cumar waxa uu ahaa mid ku dhow culimada kuna xidhan lana tashada. sidaasoo ay tahay waxa ay sheegaan taariikhyahanadu in la sumeeyey Cumar, waxaana la sheegaa in ay sumeeyeen reer Binu Umayya oo ay u qaadeen cuqdad gaar ah kadib markii ay maalkii ay haysteen ee xaaraanta ahaa uu baytulmaalka muslimiinta kaga daray. Cumar markii uu xanuunsaday waxa uu ogaaday inuu sumeeyey mid ka mida shaqaalihiisa. ninkii ayuu weydiiyey, waxa uu yidhi maxaad samaysay? waxa uu yidhi waxaa lay siiyey 1,000 diinaar oo dahab ah si aan kuu sumeeyo adiga. Cumar waxa uu ka qaaday lacagtii ninkii sumeeyey waxaana uu ku daray baytulmaalka muslimiinta. Cumar ayaa cafiyey ninkii waxaana uu ku yidhi waan ku cafiyey ee iska tag. allah u naxariistay Cumar bin Cabdicasiis oo ahaa khaliifkii shanaad ee islaamka ayaa sanadku markuu ahaa 101 hijriyada lagu aasay xabaalaha Daarul Zamcaan ee magaalada Xalaba. dhimashadii Cumar bin Cabdicasiis waxaa lagu gartay oo ka mid ahayd qisadan ay soo warinayso islaantani. waxa ay tiri ka hor intii Cumar uu hayay xilka ma uusan jirin xayawaanka dhurwaaga loo yaqaano oo cuna xoolaha, balse dhimashadii Cumar kadib waxa uu xayawaankii bilaabay ama waraabaha xayawaanka loo yaqaana inuu cuno xoolihii. ilaahay ha u naxariisto Cumar bin Cabdicasiis oo ahaa hogaamiye ummadeed, hogaamiye muslimiin.